waxa lagu kala tag wax yariisan ku kala tagnay oo yiri maxaa waay muxuu ku dhahayaan dhahay waxay tiri cunuga yariiska cunugkeeda cunuga yariiska soo qabtay waxaan ku irsaana u qabanaysaana loo qabtaa ka bacdina hooyadii aabahay caysay kadibna waa furay fiiriya hadalkina faantiin waa hadalkii ina faantiin waa muhiim uu sheegay wuxuu taagan yahay hadalkaas marka waa xaqiiqda kaas hadda waa xaqiiq maxaa ka dambeeya waa xaqiiq ma hooyadiis ma caynin laakiin cunuga ina isku dagaalna cunug waa xaqiiq cunugayga ina isku dagaalna aniga asaga waa xaqiiq laakiin hooyadii aabay caysay asaas ku furay no adeer macaane cunugayga isku dagaalnay cunugayga cunug yarha ayaa tiri saan loo ma qabtay saan baa loo qabtaa adoo ustumbuga laho inta qolka ka soo baxda waxaan ku dhahay maja dhuuban inta dhubuc soo tiriya waxa tiri saan loo ma qabtay saan baa loo qabtaa adeer saan baa loo qabtaa cunuga saan baa loo qabtaa tiri naagta dhashay ilmahana waa milyuun rooble naagta ilmaha dhashay adeer macaan maxaa ka qaldan markaasaan kugu yiri wariyaa fucking bastrio sudoon u qabana cunugan ku dhax kamana hadli karti waan aqlaaq xunta wariyaa asoo intaan ka yaroon ilmaha kale qabanayaan ku dhax wiligiisna uma diiday 4 sano kan jiro hooy idib korkiisa raduudha u saara cunuga edebna mali dalaaqadeediina calada ku dhashay waa get out my house na waa ku dhax get out my house dalaaqadeedina isii hay waa tiri qof kaarta walaalkeen ku wacday markaan walaalkay wacday waa tuugtay ana diiday inaad tuugtid oo dhahdid waa la galaa garta maxaan ku dhahay dalaaqadeeda bisa maqshina ana wacdo walaalkay ma dhihi kartid saanay wax u dhicin isaan isku wuxuu rabay idaarka walaalkay inuu uga sheekay xataa wasaan isku qaban had jaawo duurkooba geemo jadiyo wiilka walaalkay wuxuu rabay markii inuu dhaho cunuga isku qabsanayo saasay tiri ana saasaan dhahay iyada go'aankana iyada gaartay furtaanka saasuu rabay inuu dhaho ana afka sharood ka saaray kab aan afka ka saaray walaalkay waxaan ku dhahay bis waxaa leedahay aboo ku salaamay walaasha dalaaqadeeda iga dhageyso bas wiilka adeerkii dhal waxaan kugu qasbay inaad dalaaqadeeda geerisid adigoo indhaha taagayo dhahayo jaranjarteeda waxaa ka degta adigoo waalan oo fayoobeen jidka waxaa sii marta adigoo waalan oo fayoobeen gabdhaha dariska oo meesha fadhiyay waxaa ag marta adigoo waalan markaas hebel aawo ma joogo hebel wuu maqan yahay heblaayo milyuun waa soo furay way soo furisay milyuun waa kala tagnay cunuga saas tiri su'aalan la weydiin baa ka jawaabtay you are crazy man fucking gabdhihi waa ka yaabisay yaa ku weydii gabdhaha kuma dhin maxaa kugu dhaca xataa ku dhilaan waa gariire markaas hebel aawa tiri hebel ma joogo dilgu dhaa iskama baxdo iskama raadsatido markaad dad jidka maraayo su'aal ku weydiin lahayd hadana milyuun waa soo furay waas ilaa wax waalan baa guri ku heystane isbitaal martiini isku bedelmaya xasbuna allah konton jir waalan baa soo xareystay waa baxday intaasay ku ekeeda waxaan isdhahay intiisa loo ku ekaana ninkan sanbacsanay siro waxaan waalana waxaan maalma milyuun haysat waxaan jiniga qabo ilaahaba ku dhaafiyay maxaa samaysadan okay dadkii marka maxaa tiri qaar waxa ku tiri qaar runta u sheegtay waxa tiri cunuga isku qabsanay cunuga qabtay waxa irsaana loo qabana iidana way ugu xanaaqday ifuray tiri waa furay ayada igu qasabtay inaan furo qaar ku tiri waa sax qaar maxaa ku tiri hooyaday bacaysa saas baan ku furay maada kala jecel in hooyada la caayo iyo in qabiilkaaga la caayo in adiga lagu caayo maada kala jecel aqli wax dareema leedahay horta ma leedahay feeling ma leedahay wax dareema feeling wax dareema ma leedahay malihid you don't have any feeling malihid soo marka sida daraadeed haddaan si kasta kugu caayo oo wax kasta kugu sameeyo ma malihid feeling wiliga adiga aniga la furtaan ka dalbanay meeqa mar aniga jaanis ku sii ibriyes abaayo igu danaysa xataa ninkii dhahay wallaahi wabillahi adeer wax la qarnaa ma jirto adkaate igu danaysa milyuun xataa markaa urka lahay igu danaysa itri waa ku bariyaa milyuun igu danaysa fiir rabitaankaaga harkoo ku gaarsiiyey qofaa leedahay igu danayso milyuun igu danaysa aniga iiga soo horjeedid oo aan ii aragtida qof waxa u leedahay igu danayso waa ku yes waxaan ku dhihi jiro kuguma danaysana because ani danaysi ma aqaani aniga ma aqaani danaysi ma aqaani because naagnool oo guri degan oo lacag qaadato oo raaxaysato oo kibirsan oo ilmaheeda aabiyaashooda kay wacato wax alaal wax yarta ka helaysan ahay soo marka danaysi ma qaano haddaan wax ku danaysanayo waxaan ku danaysanahay waaga Afrika joogan ku danaysanahay dadka dibadaha jiran ku danaysanahay ma garanay igu danayso 10 mar ay tiri aan inta ka diidaa markii dambe saa ii bariyaysan hay ku dhah aan iska ka daaye waa garad sama garanin adeer macaane qaladaad sameeyay waa ooyne milyuun aragtideeda waxay kaaga mid tahay in adiga dhan lagu dilo milyuun la aragtid adoo sii dhimanayna waa jecesha
damiir wax dareemana malihid dadnimana malihid doqon baadna tahay caqli inaadan lahayn fiiri waxaan ku leeyahay horta sixirkiyan kaaga sheekeena inaa sixirta waxaan cadeen kuwa bil baan kugu guursada ka yarkow inaad dabaaltaa waxaa ku cadaynayso nin dhan oo 49 jir iyo 50 sano jiro ayaa tahay markaasaa waxaa rab intaad naagaad furtayd ka hadlaysaa maalin dhawata nin miidin kaga sheekeeye miidin dhahaye nin baa taleefankayga soo wacay oo wuxuu yiri may imuu ogeyni taleefankayga wuu soo wacay fartaa uga dhacda ninkaas oo wuxuu yiri naag Saleebaan ahaan 2 sano qabay oo naagta ayada un bay kormari jirto dhahay ninkaas meel public uu joogo midin dhah soo qora intii daawanaysay soo qora ninka inuu dabaal ee Soomaaliya adii sheega aniga laakiin Ilaahay asturay inaan dabaal hal sano la noolaado laakiin alxamdulillah inta badan xaq shaqo jiray maalintan uu naga maqay habeenkii imaana subaxin uu dhalmin jiray inta uu joogo habeenkii cunugaas uga hayn jiray marka kale taxta way caawin jiray ninkan dhanka caawinaad taxta waa ku fiican yahay guriga wax kasto nolosha kaaliska arag because naagtan quruxda badan uu rabaa jecel inuu ku abuuro laakiin jecelku waa quluubiyan ma iska imaanayo yaa jooga marka okay ninka dhahay taleefankayga farta uga soo dhacdo oon ogeyn waa asaga maalintii aan kala tagna waa kaaga darnaan bismillah duhurtii markii laga baxay aan kala tagna wuu baxay markuu istiraasay waa tuu carray jidkii wuxuu ku sii wareeray meeshuu tago dukaan uu joogaa dukaan uu saas u dhex fadhiyaa waa la badan yahay dukaanka aniga marka farta uga soo dhacdo taleefankayga asaga fartiisa ku soo dhacday mii ogo wuxuu leeyahay naag Saleebaan baan 2 sano soo qabayo wallahi weligay ayadoon bay ku korbari jirtay naagta weligay anu kama kormar weligay hal marna kamaan kormar hadda anigane dadku sheegno ani adiga kormar jir adkaatay aniga adigana yaa kormar jir bal hadda meeshaad saaran tahay ka sheeg bal aniga adiga yaa kormar jir gabadha Saleebaanka aheeday oo 23 sano 24 sano ka hor waa gabadhaas Itoobiya ku guursaday gabadhaas markuu guursanayso sheegay Itoobiya joogay waa 24 sano ka hor waa gabadhiisa curada hooyadeed intuu guursanin ka hor waa markii adu uu 25 sano meelaha ka soo wareegto waa ninka public dukaan ka dhaxdhaay taleefanka aniga mi ogo WhatsApp-ka alla ariga naftiga isgaga dibiyo wuxuu taagan yahay 2 sano baan qaba naag Saleebaan qabiilkooda sheegay xataa gabadh fiirso u bahdilay waa ahbal soo kule masaajid baan ku jira 5 salaadood baan tukada anigu muslim baan ahay anigu ila balaaya gowsa waxa daayir carso ka sheegana run waay qarxis qanda gowsalaha gudishay markaas wuxuu leeyahay maxaa la yiraahdaayo gabadhii 2 sano qabay weligay ani kama kormarin macuuriyaan baa tahay maxaa ma ka kormar xal yiraahdaa xaaskaaga sidaad ugu faalootaa qaabkaad isku wasteen nacalatullahi calayk to axmaq baa tahay baaster baa tahay wicil baa tahay garac dhalay baa tahay nacalatullahi calayk sinjidda aabaha us ma istaahishid nolol inaa noolaata xataa xaq uma lihid fucking baa tahay ninka gabar uu 25 sano ka hor qabay dhahay 2 sano isla joogna aniga ayada un bayga kormari jirtay dhahayaa tahay nacalatullahi calayk ninka waxaa tahay gabdhuhu soo furay dhan iiga sheekeeyeen qaabka uu si jira xataa iiga sheekeys that's why aniga iskuma kaa dhiibin you know that's why aniga iskuma wada kaa dhiibin you know that saas moogtahay xataa contacting markaa sameyneen aniga kuma aaminin adi wax jecel intaas leegna kuuma qaadin just calafkayga ilaahay kugu daray waana kugu danaysana lacagtan waa iska daldalanayno hadda aniga adigu ku rabno cunuga caloosheeda galamaan ka nixi lahay maalinta aan ka naxay oo ku dhahay maribin uurka inaan qaado oo ibariyayse no kama nixi lahayn gabara baa wiilku u dhashay Denmark Shabanhaane deganta saa u wasta xataa iiga sheekeysana Allah kugu taale saa u wastay ay iiga sheekeys way suuxday intaan wasay nin rago iska dhigaa khaalis kaar wax qanci karo waa suuxiye na Allah kugu taale adana ugu qasbina wasaqdaadii qurunkaaga daadeen qurun weligay wax kuma sheegan weligay kuma aaminin ani weligay iskuma dayn inaan ku aamino weligay shaydaan tahay kabiir hata oo fucking oo ilaahayna aqoonin umadiisana aan aqoonin sanbac la soo daayo TikTok dhax keenay Soomaaliya iyo Cafiir waxaa la yiri ninba waxaa la yiri xijka wuxuu geeyay sodohdiis iyo xaaskiisa markaasuu wuxuu aragay xaaskiisa oo dhays ilaahu icafi ayadoo nin iqabo ayaa nin kale la seexdo sineystay markaasuu wuu carray sodohdiisa u tago wuxuu sir naagta u sheeg sodohda waxa tira naagtan anoo qabay nin la jiifatay dheh sodohdii wuxuu u tagay oo haddana dhehayso ilaahu icafi anigana ninaan la tuntay hadda ka hor idoo li qabaan in la tuntay
saan u fiiri wuu yaabay wuxuu yiri ilaahayow icafi anaa laba dhil xijka kuu keenay aniga laba dhilo xijka kuu keenay ilaahayow icafi yiri ninka hadda waxaan leeyahay Soomaaliye icafiyo anaa nin waalan oo sanbaca oo doqona oo naagaha soo furso u wasa ka sheekay idin keena TikTok ana idin keenay markii icafiyo war ninka waa naagta wiilku u dhashay ka sheekay soo wasay waa ninka gabadhiisa curada naagta dhashay ka sheekeynay soo wasay aniga waa ogaa inay inixeeni daadis waa isku makaadin saan doona xataa kuula ma raaxaysaneyn saan doona xataa kuula ma raaxaysaneyn aabaha was qurniyo waan ogtahay inaan kugu adkeenayo u sheeg dadka goorma kugu dambeysay milyan ee kula raaxaysato u sheegna sheeg ilaa waxa qaras ma jirtay waxa sheegtaa marka oo ku xujisa aniga adiga xilliga isku keen dambeysay milyan way ku cadaabtay maxay kugu cadaabtay maxaa kamid waxyaabaha kugu cadaabtay sheegno xoolaha meel soo fadhiisiye ilaa nin noloshiisa ka hadlaayay naagaha oo soo araso u say ninka markuu biriq oo baaster yahay wuxuu iska dhigaa inuu naagaha si fiican u soo wasay markaasuu naag walba ka sheekeynaya waliba ninka aqliga leh kama sheekeeyo ninka aqliga leh haduu xataa qaniis eber yahay kama sheekeeyo laakiin adiga aqli la'aan baa ku darsatay waxa taaybo aqli la'aan baa ku darsatay aqli ma lihid yaa nothing wax aqli ma lihid 0 garaacaysa gabadhaada curad hooyadad baa iga sheekaysaa u wastay nacalatullaahi calayk wiilkaaga Shubnham jooga hooyadiisa u wastay iga sheekaysay gabadhaada joogto oo hooyadiisa u wastay iga sheekaysay naagta hadda ay qabtay ilmaha ku dhashay u wastay iga sheekaysay waan ka diidi jiray mid naag kasta ayda ku rabto naag kasta waxa leedahay way jeclad naag kasta waxa leedahay way sabr laada naag kasta waxa leedahay way rabtaa mee khabaran jac kugu dhajiyo aan ku dhahay see kugu rabaan see ku ogaateen ay qurbaan adima qulubtada ku jirtaa afka may ka dhahda maya see kugu rataa marka waa ka dareemoyano dad ku tiri waa jecelahano dad markay ku dhees adima kugu dhahda aday ku dhiileed markay dad ku dheeso noloshaada ka sheekeynaysa naagahaaga soo gursta ka sheekeynaysa war qasiis kala jirin oo fakinaha taadeer macaani na Allah ku dhashay dad hadaa qabto ha ku xirxirtaan xabsiga ku geeyano waa waalantahay you are mad mentally baata maskaxda ka jiranta hadda marka waxaan ka rabaa inaad u sheegtid Soomaalida anigii adigana qaabkan contact u sameey jirin bal labadeena yaa kormari jire imise qaada jirtay inta aanay adiga macnaha shakiliga meeqa daqiiqay qaada jirtay ma sakine qaada jirtay ma saacade qaada jirtay sheeg ilaa adiga yaa bal imaada public adiga yaa private life kaaga fiir maxaa private la yiri private waxa la yiraahdaa waxyaabaha qarsoon ee muhiimka ah dhaha adiga yaa geeyay soo marka adeer waxa tiraahdaa milyuun noocaas baan u kulmi jirnaa please hadda life inta ku jira raba dadka inay ku soo daawadaan soo sheeg nacalatullaahi calayk islaamnimadana raad kuma lihid bini aadanimadana raad kuma lihid xayawaan la kordhabay oo loos dhabay tahay daahir cali soo wuxuu ka sheegay wuxuu kugu sheegana waa run aniga markaan ku arkay inaad dabaal tahay oon ku arkay inaad ay dhalo naagu soo furay dhan cilad u sameynaa tahay oo soo wasi iga sheekeynaa tahay hatta gabadha Salamaanke naaga hore iga sheekayso ku jirtay والله وبالله لكن ما أنت ندمبرة فرتا كاغ صور على فرتا لو جوي أنا كم تلفون كيغا لا فايقو تامي على فرتا كاغ صور على التلفون كاغ مركا أنا أهبل تهاي دبال تهاي استوبي تهاي ما حنكو سمي متقنا داير على شو أنتو شيء كوكو سمي no yes because of وأبال كاغ أوران لي هاي أدر معاني على شيء ده بني آدم كل حرفنا حق أيام الله أنا حمار كيجا أهاتي يو أماي حمار ماي إكس حمار كيجا محاك بدل كرتها أنا كوكو قلدمي هذيك أنا كوكو قلدمي وكوكو قصاري أنا قسيس جورسدي أنا قسيس قوارب جورسدي أون حشونين أون هوانك قيمينين أون حشينين أون شرف إيه اسم بدنا أولهن نع الله كوكو تالي لحظة دش ولا شا كل ده تيجي ترى أنا ويجعشة وهبرتها معندش وح أنقرنا مله ولا أنا قرني وح أنقرنا مجرد ولا شا كل ده تي وهبرتها معان كودا شو ناكت سوكر سدش أيقول تروي يجعشة because أنا جبرس وناقة أنا قد حياد بحرير وناكسن وقد عيا هذا يقول تروي يجعشة هذا قف قسم كجعليه تن هبرتها ده شو كجعشة تن ده شو كجعشة تاسافر تو كجعشة مليون لك جرت وحن كجعليه مليون لأنك أنا قاعد أقول لك ودي منا ده تكسرني إيجا إيدي منا تو نقتك نعلى كل شيء بح
baktiyo qasiiska uraaya sidee barayfadkayga banaanka u geysaa sidee nolosheen uga hadashaa sidee dhilo xun oo qaxbad ah oo ayada baranka lagu furay lagu wasay uga sheekaysaa nacala kugu taa qasnad malihid miya ya qasnad malihid miya barayfadkayga akaadshi only just waxaa waaye waxaa isku dagaalna fiiri waxaan kugu eriyoon kugu buriyey public gays you know daara calasow inuu meelaha ka dhawya ma ogid miya boqol daara calasow oo fawdo ah inay meesha wada joogaan ma ogid in laga duubanayo inay hana shir ay dhasho tahay aysan ku qarinayn ma ogid inay hana shir xaalad indhaysay asaa ii sheega ma ogid axbil ma tahay akh adigu maxaa tahay maxaa ka samaysan tahay waxaan isku dagaalnay cunugan saasir cunugaa qabtay cunug saan waxaa irsaan looma qabtay saan waxaan waxba ahayn baan ku kala tagnay waxba waxaan ahayn waxba ma ahayn laakiin anaa dabada laad kaa geli because aniga cunugayga waa indhahayga weeyaan ilmahayga waa indhahayga ma ogoli eragaas hadda aad tiri xataa ma ogoli saana loo qabtaa ee saan looma qabto ma ogoli ilmahayga xataa inay kibir meeshaan ka gaaray iyo hooyo wanaagsan oo ilmaheeda jecel u ahale hooyada ugu fiican sidaan u aha fiiri waxaan kaa ogolaan waa inaad tiraad saan looma sameeyo saana loo sameeyaa bes cunuga saan looma qabtay saan baa loo qabtaa ayaan kaa ogolaan waayey landheeranimo hooyo wanaagsan aan aho ilmaheeda ka ilaashanayso istubidyaasha hooyo wanaagsan oo waxaan ahay dameerada guryaha soo gala ilmaheeda aanu ogolayn inay ku xadgudbaan hooyo wanaagsan oo waxaan ahay u qalantay inay ilmo dhasho lagu aamini karo ayaan ahay wax kale umaadan geysan cunugayga fiiri wax kale kumaadan samayn just waxaa tiri cunuga saana loo qabtaa saan looma qabto 2 times aan kuga arkay mar labaadku waa kugu eriyey abiilaa haysatay ani already basheegi rabin laakiin adaa sheegtay adaa qarxisay waxaa la rab gabadha calafkeena dhamaaday just only inaa iska tiraa maxaa ku kala tagteen gabadh fiicanaad milyuun maa kala tagteen waa lagu dhahaa already waa ogahay laakiin waxaa la rabaa calafkeena dhamaado waa isfaham weyne bas inaa that's it waxaan kala tagnay wiilkeeda wuxuu qabtay cunug yariska waxaa iri saan looma qabtay saana loo qabtaa kadibna hooyadayba caysay aabbahay saas baan ku furay been badan idee war runtii horaa sheegay galaal beena uga kabanay miya adeer anaa furitaanka kaa dalbaday 100 maraana kaa dalbadood igu tiri ugu danayso xataa ninkii dhaha tahay milyuuna intaa ka dhalaysa maadaama qalitaanta abbaa igu danayso xataa haddaa i rabin yes adaa i tiri حتى هذا الدرب المليوني انت لو قلاي اما اتكدليسد igu danaysa ada yiri adiga idahay shan marka badan ay igu tirmiyeen igu danayso sa ii qanacsid liyaane مليون حاملات هاي مليون ساواي igu danayso dantaada fiirso ha caawinaada baanta mu baahni dan me khamar at least cunugayga dartiisa adeer bacdaada lagu tuurino dabada la laga adoo gariira aga baxday kan du yeeme fatris la ma vent soo marka adeer dhubuqaysay ana dhaadhaan soo xareysto dhaadhaan uray ana soo xareystay lacagtaadina waan dhacay xoolahaagana waan qabaa halkaas cad baa ilaahay iga abuuray eragaaga allah ka amaan geliyo iyo sharta meelaha wareegayso shan cunug oo kala hooyaha qabtaa shan cunug hadda aaba fiicanta way shan cunug shan hooy u noqdeen intee ku ogtahay cunugaaga miskiinka xamar joogay xamar yaana dhihina joogo in balad xaawo hadda aqli leeda gabadhaada curadaayo cunugaaga oo weyn u dacwolad waa hora keensa laheed ma biisha ana ku qasbi jiray naagta kaliya ku dhigi jirtay ilmahaaga wax u qabo aniga aheeday soo dhoofi gabadhaada yaa ku dhah anaa ku dhah gabadhaada waa gabar qurux badan soo dhoofi yaan ku dhah maya ma awoodi ha marka hore maxaa soo dhoofi weysaan ku dhah ilmahaaga ugu dacwooweys waxaa igu tiri ma sheegaa talo ma soo iska daaya wax xun oo familkiisa qusay iska daaya ma soo ku daraa nacala dhashay waa iska deynaa intaas waa iska deynaa ma ku daray laakiin waa wax halisa markaan ku iri ilmahaaga waxa ugu dacwoon weysa maagi ay aad soo gashay wadankan wallaahi wuxuu idhahay wallaahi bilow waa iska deynaa intaas waa karoonana ilaahay dartiisaan ku deynaa intaas laakiin haddaa aaba wanaagsan tahay shan cunug oo shan hooyaha horta kala heesaa naag walbo ilaahay wuxuu kugu gargaar naagta markaa guursataad uurka hore ka qaaday maskiinta inta badan uurkaasayta uur kale muugu dari karti because dabaalaat ayaa kusii haysanaya waa lagu ogaanahay naag walba intaas waa intay kow aysan ku arkin uuray qaaday kadib markay ku ogaato way ku eriyey hal cunug ayaa nafta uga dhali kartaa because cunug kale kama dhalaysid
marka laakiin cunugaas u guursatay naagta cunug ka dhashay way ku ogaanay inaa minti lita dabaale oo doqon oo